Xigeenka Hargeysa Hargeysa iyo weliya xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka caasimadda Hargeysa oo si wada jir ah ugu qabtay howlka dawladda hoose magaalada Hargeysa shirka ka jiray oo kaga hadlayeen go'aan wasiirka howlaha guud hore uga soo saaray maamulidda iyo qorsheynta dhulka danta guud xigeenka caasimadda Hargeysa Xaabsade oo ka hadlayay dhul hore loogu eedeeyay in dawladda hoose ay ku wareejisay shirkad gaar ah waxa yiri waxa ka leeyahay waa maalintii dawladdu waa wada arkayseen waanay duuban tahay dokumentadu ka yaala horta shirkadda daryeel waxaan leeyahay waa shirkadaha ugu waaweyn ugu sumcadda badan wadanka ma aha in wax laga sheego la ceebeeyo shirkadda daryeel waxa siiyay oo ka iibinin maamulkii anaga naga horeeyay fiilkeedina uu yaala koobina waan u tusi doonaa maalintii dhaweydna TV-ga sidaas aan hor qabtay injineer Xuseen Maxamuud Jiciir Maxamed Cabdullaahi Warcade iyo xoogayaa go'aan gudfulineed bay ahayd faylkii oo process oo dhamaysan bay haystaan oo anaga ka kala deegaan ahaan intaana niman baa geesta kale xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta dawladda hoose ayaa tilmaamay inaan marnaba hoggaansami doonin go'aanka wasiirka howlaha guud iyo guriyinta ku xayiray dhulka ku yaala degmada Maxamed Mooge ee la siiyay shirkadda gaarka ah isagoo ka hadlayay xigeenka caasimadda Hargeysa Xaabsade waxa uu yiri kala qalan taayada soconaysa annaga dhulka naloo doortay annaga hore uga shaqeyn jirnay annaga inta shaqeynayna annaga bixinayna annaga beeraha fidinayna annaga maamka sameynayna annaga dadka jilicsan siinayna waa awoodayda cid kale ma